gudida iyo odayaasha deegaanka ceel bardaale ayaa xadhiga ka furay ceel ay hay'adda taakula u dhistay. Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Xasan oo ka tirsan gudida odayaasha ceel bardaale ayaa ka warbixiyay ceelkan iyo baahida ay deegaan ahaan u qabaan ceel biyood, isagoo sheegay in ceelkan yahay kii ugu horeysay ee deegaankani loo dhiso, una mahadnaqay hay'adda Danish Muslim Aid iyo weliba hay'adda wadaniga ee taakula ee u dhistay ceelkani. Cid kastoo wax u qabanaysana ay soo dhaweynayaan. gudoomiyaha hay'adda wadaniga ee taakula Cumar Jaamac Faarax ayaa sheegay in ceelkani ay deegaankani ka dhiseen ay lacagtiisa soo bixiyeen dad dibadda jooga oo muslimiin ah. hay'adda Danish Muslim Aid ay u soo mariyeen hay'adda taakula ay deegaankani markay aragtay baahida biyood ee ka jirta ay ceelkani u dhiseen. taakula ahaan u ballan qaaday in mashaariic horumarineed ay soo gaarsiin doonaan deegaankani ceel bardaale iyo deegaamada kale ee Soomaaliland ka tirsan ay haysato baahiyaha biyo la'aaneed iyo weliba abaaruhu. sidoo kalena Ismaaciil Qaliile iyo Ismaaciil Saleebaan oo ka tirsan gudida deegaankani ceel bardaale ayaa ku dheeraaday waxyaabaha aasaasiga ee deegaankani u baahay, iyagoo si gaar ah u tilmaamay caraguur deegaankani haysta iyo sidoo kale biyo la'aan iyo abaaro soo jiitamay oo baahan in wax weyn lagala qabto. shacabka reer Soomaaliland ka talbaday inay wax weyn kala qabtaan baahidaasi. gabagabadiina hay'adda taakula ayaa ceelkii iyo mashiinka biyaha dibadda u soo tuuray iyo tuumbooyin ku wareejisay gudida deegaankani ceel bardaale.